waxaan leenahay ka goosan caawad ka gacan sarreysay taasina waxay ahayd tartamaagii shanaad ee barnaamijka caawa ku tartamayay waxaan u yeerayaa iminkana qofkii ugu dambeeyay lixda tartamaa dabcan marka uu tartamaaga lixaad tartamaa waxaan fursad siin doonaa ay guddigu كل فقران وحي أي مرخاتيك كاهين أنقونا مرخاتيك كلاهين بلس أنقونا الحقوق كمودة جاري كرنا عفر تاسقفودا يانقو أنكو ودينينا يجوا وكيلنا كبلشة أنت هذا كلا كدبنا وحي قوامين دونا نسدان بلتين وهيد بعاونا كما دبيستي تاي قفك كالنتو كوبات لبات سدحات يو سدحدا كلنا أفرادي شناد لحد سد لوكلا كلي كدبنا waxaan soo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii waxaan imika u yeerayaa tartamaaga lixaad Cabdiwali Ibrahim ila soo dhaweeya Cabdiwali كو لابا صدح ها كو ها and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 كو ها
كو ها كو الدنيا قرعنا الدنيا خربنا
wiilada miyaa aniga lay qoray miyaa aniga lay qoray miyaa aniga lay qoray aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiweli ibraahim oo ahaa tartamaagii lixaad ee caawa ku tartamayay barnaamijka heesaha iyo hibada jiilka cusub dabcan waxaan soo gaarnay intii aan isoogu nimid inaan markhaati ka wada noqonno qofka koowaad labaad saddexaad ilaa iyo lixaad sida loo kala gelayo waxaad mooddaa baaqi aan u dirnay dhallinyaro soomaaliyeed oo leh dhallinyaro soomaaliyeed oo leh codad xambaarsan hibo soona rogaal celiya fankii soomaaliyeed inay caawa baaqi ka soo jawaabeen waxaad idinkuna markhaati ka noqoteen cod aan la dhalan rogin kombyuutar aan laga shidin balse si toosa loo qaadayey muusigana si life loo garaacayay inaan caawa wada joognay dabcan guddiga inta uu ka shaqaynayo ama qoraalladii ay qoreen inta iyagu isku celcelinayaan xisaabta ay noo sheegi doonaan sida loo kala dhibco badan yahay waxay nala jooga fanaaniin badan dabcan banalka waa ku jiraan ama dadka guddiga garsoorka fanaaniin waa ku jiraan laakiin iyaga waxaan leenahay caawa nooma heesi doontaane go'aan ayaad noo gaari doontaan marka waxaan mikrofoonka siinayaa cd caliwinkey fadlan ila soo dhoweeya fanaan cd mar ayaan u wadi ya mikrofoonka shimaali waxaan ka codsanaynaa mikrofoonka u shidaan guddiga ayaan fursad siin doonaa kadibna iyaga ayaa inala hadli doona بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan ka soo qaybgalayaasha habeenkan quruxda badan tartankii muddada dheer soo socday tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub oo caawa aynu gebagabadiisii joogno lixdii qof ee u dambeeyey ee finalka isugu yimina caawa halkan inooga heeseen dhammaantiin waan idiin mahad celinaynaa bannaankaan u bixi doonnaa caawa way ka duwan tahay habeenadii hore halkan baanu wax ku qorqori jirnay kadibna go'aan baanu ka gaari jirnay laakiin caawa bannaankaanu isula baxaynaa intaanu maqannahay waxaan rajaynayaa inay fanaaniintu idiin sii heesaan guddiduna bannaankay u baxayaan waa mahadsantiin waxaan idinka codsanayaa guddiga mooyaane inteena kale inaan sidaan u fadhino aan u wada fadhino xilligii dhaqdhaqaaqa iyo socodku waa dhammaaday waxaad mooddaa xilligii qaybtii ugu dambaysay ee markhaatiga nool aan ka noqon lahayn caawa fanaanka ama fanaanada cusub ee kusoo biiri doonta fanka bahda soomaaliyeed inaan markhaati ka wada noqonno guddigu dabcan waxay u baxeen waa inay doodaan siday aragtidooda la tahayna iyagu isku soo raacaan kadibna iyagoo wakiil ka ah intan ka badan 300 ee qof ee fadhida hoolka ay go'aan noo gaaraan ay tartankana sidaa kaalinta koowaad labaad iyo saddexaad ku bixiyaan dabcan waxaan leenahay nasiib wacan lixda tartame ee caawa iyaguna markhaatigaan u noqonayno haddaba idinkii sidii aan idiin kala baxo waxaan idinka codsanayaa qolooyinka maamulka haya xagga habmaamuuska inay albaabka xiraan fadlan idinkuna ha wada fadhidaan intay guddiga dib inoogu soo noqonayaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin cd harmaan intuu cds diyaarnay anigana idiin heesaa laakiin waxaan isleeyahay haddaan heesa inaa guddigu usoo laabtaan howl cidlaa bk
dadaashay maad ku dayatood nabadda doonto ogow dagaal waa dabarkaage shacabka daalay waad u danaysan istaaya waa diideen wadirtaadan umaadeen dabka dhiga dib u heshiiyo dib u dhiso la kala hooyo istaaya qaranka duugay dibanu yadeelno calanka doorka dushaa saarne qaranka duugay dibanu yadeelno calanka doorka dushaa saarne dib u ciyaare dib u ciyaare dib u ciyaare maad ku dayato nabadda doonto ogo dagaal waa dabargo'aage shacabka daalay madu danaysan istaaya waa diideen wadirtaadan umaadeen dabka dhiga dib u heshiiyo dib u dhiso la kala hooyo istaaya qaranka duugmay dibanu yabeelno calanka doorka dushaa saarne qaranka duugmay dibanu yabeelno calanka doorka dushaa saarne dib u ciyaare 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 dhidibkiyo xargaha goosta dhidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda midibkiina maaraysta dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule dhaliyahay kacotoosa midibkiyo xargaha goosta dhidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale awrtada ka weynaada midibkiina maaraysta dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule nabadbaatay weeyaane idinkoo dhabibyaysan dhumuciyo lixad sheegtay kumayaal saba u dhaafay californiyo dhayton minnesota soo dhaafa
hilaaciisa maqashiyo aqoontiina dadka soo dhigo keena kastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo caryaanta daruura ku soo dhuunta dhoolkiyo hilaaciisa maqashiyo aqoontiina dadka soo dhigo keena hoy dhaliyaroy toosa si waliba sii dhaanteeye dhulka hooya soo aada qaleecada ka jira beesha hoy dhaliyaroy toosa si waliba sii dhaanteeye ilaa waadu dhalateene dhaxalkiini bayaale dhulka hooya soo aada qaleecada ka jira beesha
Dia
gurashalku gudboonaate anoo gabdha geesmaraye adaa gabdhakootu kisee anoo gabdha geesmaraye adaa gabdhakootu kisee geedkii mirigiisa gaduutaaya gurashalku gudboonaate anoo gabdha geesmaraye adaa gabdhakootu kisee أنا قبلك اسمري أنا قبلك قد فسي
cabdikariin lixda tartama uu yeeray
waxaan rajaynaynaa barnaamijkan inuu dariiq u furi doono fanaaniin badan oo fanka Soomaaliyeed ku soo biiri doonta caawanaan markhaati ka noqon doono qofkii koobaad dabcan labaad iyo saddexaad ilaa iyo lixaad dhalinyaradaas ku tartamaysa qofka koobaad gali doona dabcan macnaheedu ma ahan kan koobaad gelin inuu guul daraystay balse isaguba ama iyaduba waxay naga mudan tahay dhiirigelin in tartanka qaybtii ugu dambeysay ama finalka ay soo gaareen ay la soo tartameen in gaaraysa 190 dhalinyaro ayagoo lixa ay kaalinta ugu kama dambaysta ku tartamaan waxay muujinaysaa kartidooda iyo codadkooda basiiyay hibada ay u leeyihiin anaguna fursad u helnay inaan caaw ku dhageysano waxaana leeyahay nasiib wacan daqiiqada kadib waxaan ogaan doonaa qofka kaalinta koobaad gala guddigu waxaad moodaa waqti badan bay dibadda ku wada maqnaayeen waxay intaas soo la fagurayeen ama ay ka soo doodayeenba sida loo kala siin lahaa kaalmaha koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaadba saan idiin sheegayna guddigu way ku adkaan doontaayoo waxaan ogaa ama aad ila wada ogtihiin oo markhaati ka tihiin qofba qof kale inuusan ka yaraysanin intii aan markhaatiga ka ahayn balse inteenno idili waxaan markhaati ka noqon doonaa qofka kaalinta koobaad geli doona guddiga ayaan mikrafoonka siin doonaa waxaan idinka codsanayaa nafsadeyda iyo nafsadiina u sheegayaa inaan ku kalsoonaano guddigu waa annagoo kale waa xukmiyaal waxa ay xukminayaan dabcan maahan aragti shakhsi ahaaneed oo annaga waxaa laga yaabaa haddii shakhsi naloo weydiiyo sidaan u aragnaa ama sidaan jecel lahay inaan si uun oran lahayn balse guddigu waa 4 qofood oo 4 qofood way kala fikir duwan yihiin iyagoo kala afkaar duwan ayay wax ka munaaqashoodeen wax ka wada doodeen doodoodii ama fikradoodii kala duwanaana ay isla garteen hebel iyo heblaaye ayaa saas mudan hebelna ama heblaaye sidaas bay mudan tahay taasna waan ku tixgelinaynaayo maxaa yeelay fanka ama aqoonta ay u leeyihiin iyagoo fanaaniin ah abwaaniin ah inaan ku tixgelinno mudnaashahaasna aan ku siino wixii ay noo xukmiyaanna aan raalli uga wada noqonno dabcan laga yaabaa inay qaarkan yidhaahdaan maye kaalintaas hebel ama heblaaya ku fiicnayd balse sidaan rabno ma wada noqon doontee sida iyagu noo xukmiyaan ayaa ku qanci doonaa iyaga ayaana guddiga garsoorka ah barnaamijkana cadaalad ku soo waday cadaaladna noogu dhammayn doona caawa marka waxaan idinka codsanayaa dhaqdhaqaaqa iyo aan yarayno waxaan soo gaarnay intii aan wada sugaynay aan idiin sheegay caawadii hore inaan markhaati ka wada noqon doono fanaanka ama fanaanada cusub ee kusoo biiri doonta fanka Soomaaliyeed adin kala baxo idinka iyo guddiga waxaan mikrafoon ku wareejinayaa guddigu dabcan waxa uu sheegi doonaa sida kaalmaha loo kala galay kadibna shahaadooyin ayaa la guddoonsiin doonaa marka sawaxanka dhaqdhaqaaqa iyo hadalka halkaas ay noo joogo idinka iyo guddiga idin kala baxo ila soo dhaweeyo guddiga garsoorka barnaamijka heesaha iyo hibada jiilka cusub oo caawa habeenkii ugu dambeysay ama finalkii aan markhaati ka wada noqon doono ka wada nahay boqolaalkeena halkan fadhiya waxay inoo dheer boqolaal kale inay si toos uga daawanayaan Muqdisho Cable TV oo si live u tabinaysa barnaamijka marka fadlan ila soo dhaweeyo Shimaali Axmed Shimaali oo aan mikrafoonka markuu aad u dhiibi doono guddigana kamid ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت قدية نين ولي بقلن وهيستا قلن كأنيق الشمالي هيستو نين كان نموغا آخر نموغا دتك آن وضد داونينا مدين قل لحظة مبكر اللي تان أي هاين مركا لكن قري لبقف كمو وذا قسلسو قلنك aniga wax baan qoray asiga wax buu qoray aakhirna wax buu qoray marka taas ku kalsoonaada idinkoo guddi ah anakoo guddi ah daawadayaasha oo guddi ah insha Allah teeni qaata wana maadsantiin aakhirana u dhiibayaan waa tahay Shimaali Axmed Shimaali oo waa yarag faneeda heesa cajiiba aqoon xeel dheer u leh fanka haddaan kala wareego codbaahiyaha waxaan intaa ku darayaa 6dan hortiina ku tartamay ee aad markhaatiga ka tihiin idinka iyo intii adduunyada ka daawanaysay maadaama live loo daawanayay inta mar kale haleeli doontaba waa 6 runtii aad u diyaarsan
taariikhda fanka soomaalida may soo marin 6 sidaasa oo codadkoodu sidaa u sarreeyo oo hal goob ku tartama waa markii ugu horreysay sidaa daraaddeed 6duba waa 6 muhiima oo fanka ama heesida looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeedna qancin doona oo ay codkooda u bogi doonto taariikhdana galay weeye inta kadib dee haddana iyadoo ay sidaa too 6dooduba muhiim yihiin dee kaalinta koowaad iyo labaad dee waa nasiib markaa ka labaad gala ama saddexaad gala ama afraad ama shanaad ama lixaad yuu is odhanin dee waad fogaatay oo waa lagaa dheereeyey yuu is odhane ha is ogaado waa dhibco waxa lagu kala badinayaa ha is ogaado inuu yahay horyaal 6duba waa horyaal runtii waa hagaag waxaan bilaabaynaa xaliimo ii soo dhawow waa hagaag waxaan bilaabaynaa ku dhawaaqidda waxaanu haddaanu guddiginahay garsoorka ee tartankan heesaha iyo hibada jiilka cusub garsoorayay haddaanu nahay waxaanu hambalyo iyo mahadnaqba iyo bogaadinba iyo ammaanba siinaynaa idaacadda wadnaha FM codka dhalinyarada ee si wadaninimo hawshan u fuliyey ee u qabtay bulshada Soomaaliyeed meel kastoy joogtana dibad iyo gudo caalamka meel kastoy kala joogtana ay ku qanceen raallina kana noqdeen sidaasna ay marag uga yihiin oo ay goobjoog uga yihiin laguna qanceen intaa kadib waxaanu shahaado ama kaalin sharafeed muhiima oo qaayaheeda iyo qiimaheeda la siinaynaa Axmed Cabdulle Xasan oo ka mid ahaa 12 ku tartamay doorkii hore aad way waa hagaag أحمد عبد الله حسن وسمي فينالكي أيه أحمد محاضر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان قدية إيه كسو قيب قلاياش ترتن كان مالك يقول رئيسي أن كسو قيب قلايا ترتن كا وحائري قدية إيو كسو قيب قلاياش دمان وحاورو جينا نسيب وعن سيدان جعلاينا وين قطي ترتن كان كليو كما أكو إذا عدودنا أفهم سيدي بلان قاتي ترتمك لا حيقي دونه دمان وحاوهم بلينا اللحظة قف إيه صوب هذه وحاربا إن هالكان كشيغو dadka dhaha muqdisho fan ma yaalo naga xishoodan wixii caaw ka dambeeyo intaas ugu baxaya aad ay u mahadsantihiin hadal badan masii dhigi kara farxadda ay ka tan badan waa salaama dhammaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Axmed Cabdulle Xasan ya waaye kaalmihii baynu u gelaynaa caawa tartankan 6dii ku tartamayay kaalmahoodii inaynu kala siino isla markaana guddoonsiino shahaado heer caalamiya waa hagaag nuur cabdilaahi xuseen kaalinta 6aad ayuu ku guulaystay nuur cabdilaahi xuseen nuur cabdilaahi xuseen nuur cabdilaahi xuseen
waaye waa hagaag kaalinta shanaad waxaa ku guulaystay zahra axmed jimcaale kaalinta shanaad kaalinta shanaad kaalinta shanaad عادي قبل سارة عادي قبل الشاي عادي قبل اوكي واي تكلم ان كالنتا افراد محمد عبد القادر محمد ايا كالنتا افراد ku guulaystay aad iyo aad الشهادة واي kaalinta saddexaad tartamayaashii tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub ee caawa waa nasteexo cabdikariin axmed waa hagaag bal haddaba maxaad filaysaan bay ila tahay kaalintii labaad baa la soo gaadhay labadii ugu dambeeyey ayaa la soo gaadhay bal hadda labada kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad intaanan ku kala dhawaaqin aan u yeedho cabdiweli ibraahim maxamed sooka adna cabdilqaadir muxiidiin kulmiye adna sooka waa hagaag labadooda maxay kala noqonayaan haddaba kaalinta labaad ee tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub waa cabdiweli ibraahim maxamed guddoonsiye agaasimaha idaacadda wadnaha ayaa guddoonsiinaya waayahay kaalinta koowaad ee tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub waa cabdulqaadir muxyidiin kulmiye shimaali axmed shimaali ayaa guddoonsiinaya waxaan idinka codsanaynaa inaad fadhidaan guulaystaha heestii ayuu ku celin doonaa mar labaad marka fadhiya si aan markhaati ugu wada noqonno marka fadhiya
suga wax yar suga fanaaniinta intii heestay 1 2 3 4 5 6 ilaa 6 kulli way fiican yihiin waan u baahanahay anagu haddaan fanaaniin iyo guddi aan guddidanahay si xaqaan u qaybinaa anagu dee uma qaybinayno si macnaha garabayahan laakiin anagu fankii baanu nahay kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe waan isugu jirnaa marka sida uu xaq u yahay baan ayaan qofka aan shahaadadiisa aan u guddoonsiinaynaa waxaan jeclaan lahayn inuu noo qaado shamaali inuu guddoonsiyo horta bil shahaadada fanaankii ugu horeeyay tartanka ku soo baxay kaalinta koowaad marka welcome soo dhaweey hotel fanaan ay shamaali waxaan ku leeyahay cabdiqaadir muxidiin kulmiye iga guddoon shahaadadan idaacadda wadnaha ay kugu talagashay iyo annagoo dhan aan kugu talagalnay waad mahadsan tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aakhira iga qabo waayahay waxaan leenahay hambalyo waxaan caawa taariikh markhaati ka wada noqonnay tartamayaashii barnaamijka heesaha iyo hibada jiilka cusub oo uu ku guulaystay cabdiqaadir waxaan leenahay cabdiqaadir hambalyo cabdiwelina waxaan leenahay cabdiqaadir cabdiqaadirna waxaa cabdiwelina waxaan leenahay hambalyo kaalinta labaad nasteexana kaalinta saddexaad sidii kale afraad iyo shanaad loo kala galay waxaan leenahay dhammaantiin waa wada dadaasheen qof walboo idin ka mida waa guulayste qof walboo caawa markhaati ka ahna meesha waa guulaystayaasha ayuu markhaati ka ahaa waxaan intuusan fanaanka heestii uu ku guulaystay noo qaadin waxaan kelmadda ugu dambaysa siinayaa agaasimaha radio wadnaha FM radio inuu kelmad kooban yiraahdo kadibna fanaan cabdiqaadir heestii uu ku guulaystay caawa barnaamijka ayuu mar labaad noo qaadi doonaa heestaas ayaanu ku soo xiri doonaa marka kelmad kooban aan wada fariisanno heesta ugu dambaysa saa markhaatiga aan caawada wada dhammaystiranne heesta ugu dambaysana ku wada raaxaysanno kadibna insha allah waa kala hooyan doonaa marka ila soo dhaweeya agaasimaha abu agaasimo yuusuf cabdirasaaq aad baad mahadsan tahay habeen wacan oo wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay runtii dhallinyaro codadkay ku heeseen caawa halkan inaad ku aragtaan waan isu mahad celinaynaa caawa haddaanu nahay wadnaha FM guul taariikhi aanu gaadhnay guul taariikhiya oo dadkayaga iyo dhallinyaradaydu ay ku suntan yihiin baanu caawa magaalada muqdisho ee caasimadda ummadda soomaaliyeed dusha kaga qornay waxaa farxad noo ah in dhallinyaro la mida kuwii halkan ka heesayey ay caawa ku caawiyeen sacab mushxarad iyo dabaaldeg farxad ka weyni ma jirto dhallinyaro qaarna heesayaan qaarna ay ka soo qayb galeen goobtii ku heesayeen magaalada muqdisho waa magaalo bulsho badan ay ku nooshahay idaacadda wadnaha FM oo codka dhallinyarada ku hadasha maalintaanu tartanka bilaabaynay waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed inaanay aaminsanayn tartanku meesha uu caawa joogo inuu gaari doono laakiin awoodayada iyo jacaylka dhallinyarada aanu jecelnahay waxaanu ku suurto gelinay inaad caawa makhraati ka noqotaan wixii quruxda badnaa ee halkan ka dhacay way ka dhici doonaan marar badan oo ma aha tartankani kii ugu horeeyay kii ugu dambeeyayna noqon maayo dhallinyaro badan baa jirta oo hibooyin leh hiboolayaasha hooyadooda la jooga hibadooda wadnaha FM wuxuu u istaagay inuu bannaanka keeno si looga faa'iideysto dadkuna uga faa'iideystaan qarankuna uga faa'iideysto wadnaha FM runtii waa idaacad muddo yaroo kooban furan haddana waxay aad ugu dadaashay inay dhallinyaradaas aad caawa arkaysa soo saartay dhallinyaradu waxay u baahan yihiin cidna u daba fadhiisan maayaan inta idaacadda wadnaha FMkeedu uu taagan yahay kuwooda hiboolayaasha ah ee afka ka heesa iyo kuwa gabayada tiriya sidoo kale yaan ka tegin hormuudka dhallinyarada Soomaaliyeed oo ah hablaha kuwa buraanbura xataa waxaan u qaban doonaa tartan si iyaguna kaalintooda uga qaataan wadnaha FM wuxuu u taagan yahay dhallinyarada Soomaaliyeed runtii aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu mahad celinayaa guddidii qiimaha badnayd
ee hawshii aad arkayseen dadaalkeeda iyo u baahnay juhdiga ila soo qabtay uu ka mid yahay macalinkaygii abwaan cabdirasaaq axmed geedde aakhiro bara jaamacadeed oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed fanaanku dayasho mudan shimaali axmed shimaali sidoo kale walaalkay daa'uud xanfar isaga walaalkay baan odhanaya waa dhallinyaro iyo runtii tiimkii musicianka halkan igala soo shaqeeyey wadnaha fm waxay caawa qabatay inta iyadan oo keliya tan maaha waxaa jirta qayb mudnayd inaanu caawa halkan sida dhallinyarada loogu maamuusay aanu ugu maamuusno oo iyaguna caawaan halkan goobjoog ku ahayn waxay mudnaayeen annagoo aan qarinaynin annagaa sheegayna idaacadday ku maqan yihiin iyagana guulaystaan leenahay dadkiina garab taagnaa waxaa jirta xidigta wadnaha xalime axmed aad baan ugu mahad celinaya la'aantee tartankani muu suurto galeen xalime aad baad u mahadsan tahay walaalkay cabdikariin oo isaguna mashiinka wadnaha fm uu ku shaqeeyo saaxiibadii kale ee mudnaa tabaftirahaygii saaxiibkii guuleed sabriye oo aan jeclaa caawa halkan inaan ku maamuuso laakiin waxaan jeclay inaan hab siiyo saaxiibka waan jeclay inuu soo kaco guuleed soo kac guuleed waa tabaftiraha idaacadda wadnaha fm waa halgamaa u soo dhabaradeegay tartankani inuu caawa suurto galo in dhammaanteen sidan u wada faraxno aad baan u soo dhaweynayaa guuleed soo dhowow way mudnayd saaxiibka inaan caawa halkan shahaado ku siiyo laakiin waxaan siiyey shahaado aan warqad ahayn oo aan ku qornayn warqad qalinna aan loo qaadan oo aha qalbigayga saaxiib aad baad mahadsantay guuleed waa tabaftiraha idaacadda wadnaha fm aad baad mahadsantay walaal cabdirasaaq baan ku wareejinaya cabdifataax aad baa u mahadsantihiin guulaysta waanu idinla faraxsannay idinkuna nala farxa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan yahay agaasime yuusuf dabcan waxaan caawa markhaati ka wada noqonnay barnaamijkaas ay soo agaasintay bahda wadnaha fm guulaystiisana uu garab taagan yahay dabcan cabdiqaadir muxiidiin kulmiye waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed qof walba oo naga mid ahayna waxa uu leeyahay taariikhu gooni ah dabcan cabdiqaadirna maalintuu imanayay barnaamijka ismuuna lahayn barnaamij sidaas u weyn oo ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba inta joogtay inta muuqbaahiyaasha kala duwan naga daawanaysa ayaa markhaati ka noqon doonta guushaada balse waxay isaga iyo dad badan islahaayeen barnaamijka nasiibkiina tijaabiya kuwo badan oo naga mid ahay caawa jooga ama aana jooginna waxay islahaayeen barnaamij madadaaliya ciyaara ayay moodayeen qaar badanna infact ay dacaayad ka dhiganayeen facebooka ama baraha kale barnaamij waxaan oo kalaa socda balse isma lahayn quruxdiisu inay sidan u dambayn doonto waxaan leenahay aaminsannahayna kuwa halkan fadhiya iyo kuwana daawanayaba inay iyaguba hibo cod leeyihiin hibo sugaaneed leeyihiin waxaan leenahay barnaamijkan waa barnaamijkiinnii weli isqoristu way socotaa barnaamijka qaybtiisii kale tartamayaasha qof walbow haddaad wax isku hayso istijaabi waxaan idiin rajaynayaa sanadkan iyo barnaamijkan ka xiga isagoo halkan ka weyn inaan is-hornimaanno waxaana farxaddii gaar ah inaan taariikhda ka galo inaan ka mid noqday qofkii barnaamijka xiriirinayay barnaamijkii ugu horreeyey caynkiisa ee xilligan jiilkayga dhaca ee heesaha iyo hibada jiilka cusub aan caawana markhaati ka wada noqon aad igala noqotaan guulaysta cabdiqaadir muxiidiin kulmiye heestii uu caawa qaaday iyo isagaa idiin kala baxo fiidku hay noo wada wacnaado habeen wanaagsan heesta kadibna waxaa iyadoo kale xusuusin mudan shahaado unbaad aragteene tartamayaasha guulaystay koobaad iyo labaad iyo saddexaad kala gale waxay heleen kaalmo dhaqaale oo ilaa iyo lixaadba dhaqaale lacag lacageed ayaa iyaguna lagu tartamayo oo ay ku guulaysteen keliya waraaqo iyo shahaado qalalan maynu ku guulaysanne jeebkuna uu qoyaya caawa waxaan leenahay waa mahadsantihiin fiid wanaagsan waxaanu ku soo xiraynaa barnaamijka heesaha iyo hibada jiilka cusub iyo fanaanka cusub cabdiqaadir muxiidiin kulmiye
qalkii daaruurtaay ubaxoo dilaacay dawadii naftayda haweentaan ka doortaay sida dayaxanuuray habadaran hilaacay waa qalkii daaruurtaay darmaantaan jeclaay indha waan ku diiraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbaana lagu tuumay darmaantaan jeclaay indha waan ku diiraya degmadaan ku gaarsiin lagu dabaaldegi durbaana lagu tuumay waxaa iga dardaarana ducadu maana qodee doodiyo dariiqanu qorraxduna dalaalimo dadku aabbahay iyo deeqay hooyadaan qoy waxaa iga dardaarana ducadu maana qodee doodiyo dariiqanu qorraxduna dalaalimo dadku aabbahay iyo deeqay hooyadaan abtaganay ahoydaadoy amahongodooda abtaganay ahoydaadoy amahongodooda ku dagaalin maayaan kula doodin maayaan kuna tayrin maayaan gelu waa ku daraara anigu waa ka daran yahay caanaha duruduro ku dagaalin maayaan kula doodin maayaan kuna tayrin maayaan gelu waa ku daraara anigu waa ka daran yahay caanaha duruduro dabaalan doonta gabadh baa lagu lisay doqoyaan lagugu oran dodmayaan laga garan howrta dabarka la ogo dabaalan doonta gabadh baa lagu lisay doqoyaan lagu xaman dodmayaan laga garan howrta dabarka la ogo
ataganay ahoydaadoy mahungoodo daacade ataganay ahoydaadoy mahungoodo hal fariistaal mar qof walba booskiisa ku laabto